markale isku soo noqod wacan maalinimadu waa axad taariikhdu ku beegan tahay 8 bisha saddexaad sanadka 2020 kuna soo dhawaada qodobadii warka oo fidsan aynu ku bilownay faahfaahin ka soo baxaya weerar ay al-shabaab ku qaadeen deegaanka Ceelgeele wararka aynu ka helayno gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalamayaasha al-shabaab ay xalay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidamada booliska Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay ku leeyihiin deegaanka Ceelgeele oo hoostaga degmada Balcad dagaal socday muddo kooban ayaa waxa la sheegay in uu dhexmaray labada dhinac isla mar ahaantaana ay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay iska caabiyeen weerarkaasi kaga yimid dhanka dagaalamayaasha al-shabaab dagaalkan kadib ayaa waxa la sheegay in labada dhinac ay isku adeegsadeen madaafiic kadib markii dagaalamayaasha al-shabaab ay weerareen Ceelgeele ay dib ugu laabteen deegaanka ay ku soo garaaceen madaafiic halka ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay iyaguna madaafiic kale uga jawaabeen fiidkii hore ee xalay waxa la sheegay in diyaaradaha dagaalka ay dulheehaabayeen deegaanka uu dagaalku ka dhacay ee Ceelgeele iyo waliba nawaaxigiisa kuwaasi oo baacsanaya dagaalamayaasha al-shabaab ee weerarka ku qaaday deegaanka Ceelgeele dadka deegaanka ayaa inoo xaqiijiyay in cabsi badani ay soo wajahday kadib markii ay maqleen guuxa diyaaradaha dulheehaabaya hawada deegaanka Ceelgeele dadka ku nool deegaanka Ceelgeele ayaa sidoo kale inoo sheegay in al-shabaabkii weerarka soo qaaday ay galeen dhul kayn ah oo ku teedsan deegaanka kadib markii ay dagaalku ku soo bireen diyaaradaha dagaalka oo muddo dulmeeraysanayay hawada duurka iyo deegaanka Ceelgeele ee gobolka Shabeellaha Dhexe inkastoo aan la sheegin wax khasaare ah oo soo kala gaaray labada dhinac dhinaca kale isku dhacyo hor leh oo dhexmaray booliska Greega iyo muhaajiriinta ku wajahan qaaradda Yurub booliska dalka Greega ayaa gaaska dadka ka ilmeysiya u adeegsaday muhaajiriin doonayay inay ka gudbaan xadka dalkaasi uu la wadaaga Turkiga si ay u gaaraan dalalka qaaradda Yurub rabshadahan ayaa yimi kadib markii dawladda Ankara ay fasaxday kumanaan muhaajiriin ee dalkeeda ku sugnaa loona sheegay in ay gaari karaan wadamada qaaradda Yurub dawladda Greega ayaa dhankeeda adkaysay xadka ay la wadaagto Turkiga iyagoona wadamada midowga Yurub ay sheegeen in malaayiin dollar ay Greega ku siinayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen muhaajiriinta tirada badan ee ku soo wajahan qaaradda Yurub dhinaca kale Turkiga oo ballan qaaday in uusan carqaladeyn doonin xabad joojinta gobolka Idlib wasaaradda difaaca ee wadanka Turkiga ayaa sheegtay in aysan wax carqaladeyn aysan ku sameyn doonin xabad joojintii dhawaan looga dhawaaqay gobolka Idlib ee waqooyiga dalka Syria dawladda Ruushka iyo Turkiga ayaa Khamiistii aynu soo gudubnay xabad joojin ku kala saxiixday magaalada Moscow ee caasimadda u ah dalka Ruushka kadib wadahadal qaatay muddo 6 saacadood oo dhexmaray hogaamiyaasha labada dhinac colaadda gobolka Idlib ayaa 3 bilood ee aynu soo dhaafnay waxaa kaga barakacay dad ku dhow 1 milyan oo ruux waxaan sii wadi doonaa in aanan wax carqaladeyn aanan ka ilaalin doono xabad joojinta ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga ee wadanka Turkiga wasiirka ayaa intaa ku daray in ciidamadoodu ay diyaar u yihiin in ay isdifaacaan haddii wax dagaal ah uu kaga yimaado dhanka militariga Syria dawladda Indonesia oo war ka soo saartay heshiiskii Taliban iyo Mareykanka dawladda Indonesia ayaa waxa ay ku dhawaaqday inay isku dayayso in aanun burburin heshiiskii nabadda ee u dhaxeeyay ururka Taliban iyo Mareykanka waxaana dawladda dalkaasi ay sheegtay in ay casuumaad u dirayso madaxa dagaalyahanada ururka Taliban wargeyska Arab News oo soo xiganaya wasiirka arrimaha dibadda dawladda Indonesia Masar Retno Marsudi ayaa sheegay in xukuumadda Jakarta ay isku dayayso sidii loo badbaadin lahaa heshiiskii dhawaantan lagu kala saxiixday magaalada Doha ee xarunta dalka Qatar Indonesia ayaa waxa ay dhinaca kale codsi u diraysaa madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaga oo ka codsaday inuu aqbalo heshiiskii dhawaan ay wada galeen
ururka Taliban iyo Mareykanka. Baaqani ayaa waxa uu daba socdaa xilli dhowaan uu qarka u koray in uu burburo ahdigii sida wadajirka ay u wada saxiixdeen Taliban iyo xulafada Washington. Walina waxaa taagan is-afgaran u dhaxeeya dhinacyada dagaalyahanada ururka Taliban iyo xulafada Mareykanka. ugu dambeystii Turkiga oo muhaajiriinta ka hor istaagaya in ay kriiga ka galaan dhanka badda. Turkiga ayaanan u ogolaan doonin muhaajiriinta in ay maraan badda Ayrjan si ay ugu gudbaan Griiga sababo la xiriira in aysan ammaan ahayn sida ay sheegtay ilaalada xeebaha. Amarkani oo ka soo baxay madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa imaanaya toddobaad kadib markii uu sheegay in uu albaabada u furayo qaxootiga si ay u galaan Yurub iyagoo ay taagan tahay xiisadda Syria. Midowga Yurub ayaa Erdogan ku eedeeyay inuu qaxootiga u isticmaalayo dana siyaasadeed, waxa ayna Midowga Yurub ku adkeysanayaan in xuduudahoodu ay yihiin kuwa xiran. Dhanka kale isku dhacyo ayaa mar kale ka soo cusboonaaday xadka Griiga uu la wadaaga Turkiga. Waxaa muuqata in aysan waxba iska bedelin ogolaanshiyaha uu Turkiga u ogolaaday qaxootiga in ay dhulka maraan si ay u galaan Griiga. Booliska Griiga ayaa maanta gaaska dadka ka ilmeysiya u adeegsaday dadka dhooban xadka, kuwaasi oo iyaguna ku jawaabay dhagxaan iyaga oo ku qoylinayay furo albaabada. Xukuumadda Griiga ayaa sidoo kale booliska Turkiga ku eedeysay in ay gaaska dadka ka ilmeysiisa ay ku fureen booliskooda.